Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta yeeshay mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ah iyadoo isla markaana lagu hadlayay amniga guud ee dalka, howlgallada ka socda gobollada dalka ay wadaan ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed, iyo gogosha dhowaan ay fidisay xukuumadda dan qaran, taasi oo la filayay inay kasoo qayb galaan madaxda Hirshabelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland. Kulankan uu shir gudoominayay maanta Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka labaad ee Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji ayaa lagu bogaadiyay dagaalka ay wadaan ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed oo dhowaan la wareegay qaybo ka mid ah gobollada dalka. Kulankan ayaa inta uu socday sidoo kale waxaa lagu ansixiyay heshiiska is-afgaradka ee u dhexeeya maamulada dekedaha iyo sidoo kale gobollada Badweynta Hindiya oo ay soo gudbisay Wasaaradda Dekedda iyo sidoo kale Gaadiidka Badda ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Dhanka kale, golaha waxaa lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan siyaasadda maareynta wax ka qabashada isku dhafka ah ee hay'adaha dowladda iyo sidoo kale shirka wada tashiga siyaasadeed ee xukuumadda dan qaran ee dhowaan ka furmaya gudaha magaalada Muqdisho.